bangiga Premier Bank ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho lagana leeyahay dalka Soomaaliya kaasi oo 10 sano oo la soo dhaafay shaqeynayay ayaa waxaa loo ogolaaday in uu qayb kala wareego bangiga First Community Bank oo dhawaantan sii leecayay heshiiskan isaga ah waxa ansixin uu ka helay golaha CAK ee wadankani Kenya waxaana uu ogolaanayaa bangiga Premier Bank in 62.5% ay la wareegaan bangigan sii leecaya ee First Community Bank kaasi oo bilihii u dambeeyay ay soo shacbaxayeen warar ku aadan in gabi ahaanba albaabada la isugu dhufan doono maadaama dhaqaale xumi ay soo food saartay heshiiskan waxaa sidoo kale uu u baahnaan doonaa in uu ogolaansho ka helo bangiga dhexe ee dalkan Kenya ee Central Bank of Kenya iyadoo ay jirto in First Community Bank lacagihii laga doonayay ee ugu yaraan 1 bilyan ah inay hoos u soo dhaceen isla markaasina ay gaareen ilaa iyo 924 milyan si kasta oo ay noqotoba lacagahaasi hoos u dhacayay ayaa waxa ay sabab u noqdeen in dad badan ay ka iimaan baxaan bangiga isla markaasina lagu tilmaamo mid si leecaya ama gabalkiisa uu sii dhacayo haatanse waxa uu u muuqdaa in rajo soo noolaasho ah uu dib u helay bishaaro bulshay waa bishaare idinkana bilqeyr dhaha xarunta ganacsiga ee faa'iidada badan ee Keymuth House ayaa suuqa taalo iiba rogtan waxay ku taalaa bartamaha magaalada mashquulka badan ee Nakuru waxaana uu ku teedsan yahay wadada Kenyatta Avenue dhismahan oo ah mid aad looga taxadiray waxa uu awood u leeyahay inuu qaado in ka badan 55 dukaan oo kira iyo hodheelo heer sare ah qiimaha kirada bil walba ka soo baxaya dhismahan waa in ka badan 1 milyan oo shilin dadka xiiseynaya inay la wareegaan xaruntan ayaa la soo dhaweynayaa si ay u kormeeraan dhismahan wixii faahfaahin oo intaasi dheer kala xiriir eber 7 37 99 93 59 inta u dhaxaysta 9 subaxnimo ilaa 6 maqribnimo